faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa weerar argagixiso oo kooxda argagixisada ah ee al-shabaab ay ku qaaday hodheelka Ambassador ee magaalada Muqdisho. Weerarkaasi ayaa ku bilowday qarax loo adeegsaday gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay oo kooxda argagixisada al-shabaab ka tirsan ay ku qaadeen hodheelka Ambassador ee magaalada Muqdisho. Qaraxa ayaa ka dhacay albaabka laamiga xigay ee hodheelka Ambassador kaasi oo dhaliyay khasaaro dhimasho iyo dhaawac oo soo gaaray dad rayid ah oo goobta marayay iyo sidoo kale kuwa ganacsi ku lahaa. gawaari wadada marayay iyo meherado ganacsi oo goobta ka dhawaa ayaa iyaguna waxa la soo sheegay inay halka ku gubteen. weerarka kadib dablay argagixisada ka tirsan al-shabaab ayaa gudaha u galay hodheelka Ambassador iyaga oo rasaas ku bilaabay dadkii hodheelka deganaa oo isugu jira rayid iyo mas'uuliyiin dawladda ka tirsan. sida ay ku warantay wakaalada wararka Soomaaliyeed ee dadka argagixisadu ay dileen waxa ku jira laba xildhibaan oo kala ahaa Cabdullaahi Jaamac Kabaweyne iyo xildhibaan Maxamed Guure. sidoo kale waxa dhaawac uu soo gaaray gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Dr. Xaashi Cilmi Nuur oo markaasi ay soo badbaadiyeen ciidamada ammaanku isaga iyo xubno kale oo mas'uuliyiin ah. ciidamada ammaanka ayaa hodheelka ka soo badbaadiyay dad isugu jiray rayid iyo mas'uuliyiin oo ay ku go'doonsanaa halkaasi. wasiirka warfaafinta dawladda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maareeye ayaa weerarka bahalnimada ah ee argagixisadu ay ku qaadeen hodheelka Ambassador waxa uu ku sheegay inay ku qarinayaan guuldarrooyinka isdaba joog ah ee soo gaaray maalmihii ugu dambeeyay oo ugu dambeeyeen dilalkii saraakiil sarsare oo ka tirsan kooxdu oo gobolka Jubbada Hoose lagu dilay. weerarka ayaa yimid iyadoo ciidamada dawladda Soomaaliya ay dileen 24 saac ee ugu dambeeyay in ka badan 20 ka tirsan kooxda argagixisada ee al-shabaab oo ay ku jiraan horjoogayaal sare oo ka mid yahay Maxamed Dulyadeen oo u qaabilsanaa weerarada kooxdu ay ku qaado dalka Kenya iyo sidoo kale horjoogihii dhinaca amniyaadka u qaabilsanaa oo lagu magacaabi jiray Daawud hase yeeshee iyagu ay u bixiyeen Shucayb. waxaana markaasi sidoo kale magaalada Kismaayo ay ciidamada ammaanku ku soo bandhigeen meydadka tiro ka tirsan kooxda argagixisada ah oo howlgal ay sameeyeen ciidamada ammaanku.